هذا هو كتاب كنا منهج كان لو صعد أجو الفتنة النجدية. السلام عليكم. marka koowaad waxa ka cudur daaranayaa hadalkan soo socdo تدبكي كواد الدين تأتاكتي وكو إلهي الكاسي كسب بالعين عبارة يا بهاد هرتي دل صور خير الله كو المريء رجي صودي يا خير الله كو المريء. الصورة مماثلة للصورة الأخرى هدي عاد ورقد عاد قرطات كسب ورتمدك لككو بيده ورقدي كلا يؤكت هاي لما كلا يقان ورقدي كلا لما كلا يقان وحيري ولا يعقل صورة إلا ومماثلة للأخرى لو ورقدود الله كلا صوري إن مدي لقى صوري أي ككلر دونات وحلا أقبل كلام هني ورقدي لقى صوري إني كبد لنت صورة قل ماهن ساسو كلا إلهي وحي هي بدن النبي آدم وحبنا كبدلين ولهذا أكتب لك رسالة وحي رسالة درتي ورقة أنوكو قرية ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية ورقدي يد واحد قالين يساه ماكينة فوتوغرافية اللي يراد وتخرج الرسالة ورقدي لبعض كوسو بحي يصور كاهد فالصورة مطابقة للصورة ورقدي لقى صوري وأكتهي وهذه صورة هذه ورقتان صورة دي فإذا آدم صورة لله تعالى نبي آدم صورة الله إسكاليه هيواي وحا قريه كانك أغسر ريان في الفتنة النجدية نكي محمد صالح العثيمين شرح العقيدة الواسدية واي ابن تيمية كتابك إسكالها هاي وكو شرح إياها أغو markii matniga ninkaasi lahaa soo matnigii ma aha oo cibaaradu matnigii ma aha ee sharxi Uthaymin wuxuu ku leeyahay rabbi saasu dadka xabad kamid nabi aadam oo kala way xabad kama bedelna adna ina nabi aadam ato aadam dhirirka iyo gaabida iyo mid mukulsha ma inta kale sagamidatiin inta cadow kugu taala nabi aadam ku taalay hal xubino kama ana la markaas wuxuu leeyahay Uthaymin ilaahay marka wuxuu leeyahay futada laga saxaroodu leeyahay إلهي قصي يقارو لي بل هير كل جارسية إلهي أتاجد ديسي هرتا حلقة دقو. سبحان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مركلة وعليه آد بأوحما هاي إنا إذن مقشيي هذا كان وآد كأفل حن رمتي وأكو غصبنا إنا ضدك مقشيو نمكان هذا الكيسي si ay dadka u arkaan dadkan akhlaaqdoodii iyo afxumadoodii iyo beentoodii ninkan sidaan u hadlaayo ciradiisa meesha ka muuqato runtii isma laha dadka hor fadhiyaanna waxa weeyaan xataa jacway dhihi waayeen runtii ninkan wuxuu ku hadlay qof muslim ah inuu ku hadlo iska dhaafee kan gaalka ah ee kirshaanka ah kuma dhiiranin in oo hadalkan dhaho maca annana waxaa ognahay kirshaanka ilaahay waxay u nisbeeyeen walad tacaala allahu can dalika culuwan kabiira iyadoo sidaas ah kutubtooda akhristay caqiidadoodii akhristay wax weeyaan weligay kama arkin hadalkan oo kale ninkan yacni waxaa dhihi karaa waa musaylama alkadaab weeyaan وحكو بين أبورتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحكو دقي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الكو آخرنا يي إن أو شيخ مرتي رميسية هي وعقيدة أيو كدقي وهذا كذب وبين أو عد أهويا نين كان هذا الكو آخريي بلوجيسي هذا الكاسي نعم كتابه قريه لكن وحوها إشكال أو شيخ سوق بي كذب ishkaalkaasi ayuu ka jawaabayay marka u fiirsaday dadka sida loo khiyaanayo bal fiirso waxa la soo qaadanaya ishkaalkii la soo qaadanaya waxa laga soo tagayaa sheekha jawaabtiisi ayaa laga soo tagayaa dabadeed ishkaalkaasi ayaa dusha laga saaraya sheekha rahimahullah wili ninkan intaas kuma ekan waa maqasheen afxumadiisi iyo xishood la'aantiisi waa aragteen marka anaga waxa sameeynayna hadda شيخ كتاب كيسي ويا لا الحمد لله وحا فرينا كتابك يا فرينا وحانا ددك تصنعنا نين كان بين أبورة كيسي ددك ها أقادان كوان مادام حجدي لغا عدكاذي وحويان وضدك لي أفر وحويان
been abuurad inay sameeyaan iyo iftira inay sameeyaan sidaas ayay rabaan dadka inay ku kasbadaan bal kali hadda kitaabka ayaa furayna ninkan beenaalaha ah ayaa ka soo dheegtay beentaas hadalkan ibnu cuthaymiin loo tiiriyo oo ku yaala sharxu alcaqiidati alwaasitiya qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wassalaam ina allaha khalaqa aadama calaa suuratih wasuuratu mumaahilatun lilukhraa suuraddana waxay u eg tahay suuradda kale haye walaa yucqalu suuratu ilaa mumaathilatan lilukhraa walihaada aktubu laka risaalatan waxaan kuu soo qorayaa risaalo uma tudkhiluhaa waxaad gelinaysaa alaalata alfotograafiya baashan koobiga ah wa tukhriju risaala waa ka soo saaraysaa fayuqaalu haadihi suuratu haadihi kasaalli tan waa tan koobigii tan weeyaan hadalkan ayay waxay ka dhigayaan hadal ibnu cuthaymiin uu isaga leeyahay bal dib aan u noqonno si aan usoo ogaano hadalkan ibnu cuthaymiin wuxuu u keenay inuu caqiidadiisa ku taqriiriyo mise inuu ka jawaabo uu radiyo balse horaa loo yidhi beeniraad ma leh halkaa ay soo qaadanayaan haddii aan soo gedinno beyjkaasi waxaan arkaynaa in uu sheekhu leeyahay fatabayana alآana ana الtamhiila muntafin samcan wacaqla wafiطratan waxaa halkaa ka cadaaday war buu soo waday in isku ekaanshiyaha khaaliqa iyo makhluuqa abuuraha iyo laabuuraha ay tahay arin anfowday oon dhici karin samcan xagga naqliga wacaqlan xagga caqliga wafitratan xagga fitrada qof hadalka sariixa ah dhahay miyaa la dhihi karaa wuxuu qabaa ilaahay iyo makhluuqa yaa isku eg oo wuxuu aaminsan yahay u caabudaa makhluuq isagoo kaleo xataa cawradii leh inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun haddaad xishoonaynin hadda waxaad baad ku hadlay kadib buu sheekhu wuxuu yidhi fain qaala qaa'ilun haddii ruux yiraahdo ina الnabiy sala allahu calayhi wasalam suubanaha xadahanaa biaxaadiida wuxuu noo sheegay axaadiid tashtabihu calayna naga dhehgelaysaa hal hiya tamhiilun ekaanshiyo may faa'iideynaysaa aw gayra tamhiil mise ma ahan ekaanshiyo wa naxnu nadacuhaa bayna aydiikum hortiinaan dhigaynaa buu leeyahay fain qaala waaya haddii ruux yiraahdo bushigan uu soo arooriyo maxaan ooga jawaabaynaa uu yiraahdo waa kuwan axaadiistii awe midkan koowaad u soo qaaday qaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam inakum satarawna rabakum kama tarawna alqamara laylat اlbadr laa tadaamuuna fi ru'yatih faqaala kama wاlkaafu litashbiih nabigu wuxuu yihi kama wاlkaafu litashbiih kaafkan ay kaashiyo iyo tashbiih ayuu faa'iideeya maxaan marka leedihiin markaasuu leeyahy nujiibu can hada alxadiid can gayrihi bijawaabeyn xadiidkan iyo kuwa kaleba waxaan uga jawaabeynaa laba jawaab jawaab duuduuban iyo mid mufasala oo faahfaahsan markuu labadiiba soo qaaday ayuu wuxuu kusoo gabagabeeyey fazaala alishkaalu laana ishkaalkii wuu zuulay marka ishkaal buu ahaa sheekhu uu cilaajinayo la tacaalayay uu radinayey kadibna wuxuu yihi ishkaalkii meeshuu ka baxay xadiidka labaad wuxuu noqday qaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam ina allaha khalaqa aadama calaa suurati waa halka ay ka soo qaataan iyo hadalkan ishkaalka ee la socdo ayay soo qaataan maxay ka tagaan hadalkan hore fain qaala qaa'ilunta ah way ka tagaan ee ka horeysa jawaabta sheekha uu ka bixiyeyna way ka tagaan markuu hadalkaa dhammaado ayuu wuxuu leeyahy sheekhu waljawaabu lmujmalu an naquul jawaabta mujmalka ah waxaan leenahay kadib buu markuu ayada dhameeyo jawaabta mujmalka ayuu wuxuu imaanayaa wa ama aljawaabu lmufasal jawaabta faahfaahsan ina aladii qaal midkii yiri waa nabigee subanaha calayh salaatu wasalaam ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi rasuulu ladii qaala laysa kamithlihi shay allihii dhahay laysa kamithlihi shay ayuu rasuul u ahayo soo diray warasuulu lasoo diraha ama fariisidahana laa yumkinu suuragal ma ahan an yantiqa inuu ku hadlo bimaa yukadibu lmursila kii soo diray wax beeninaya waladii qaala nabigii yiri khalaqa aadama calaa suurati huwa aladii qaala ina awala zumratin tadkhulu ljannata calaa suurati alqamar kooxda ugu horeyso ay jannada gelayso calaa suurati alqamar markaa su-aal weydiina wuxuu leey ma waxaad aaminsan tahay fahal tactaqidu
kuwan jannada gelaya inay dayaxa dhinac walba ka shabahaan mise waxaa laga wadaa xagga dhalaalka iyo quruxda iyo laga wadaa sidaas ayuu sheekhu usoo cilaajinayaa wuxuu leeyahay marka dambe way qulta bithani zaala al-ishkaalu ishkaalku waa zuulay waxaan ooga socdaa in waxaan ishkaal u ahaa sheekhana uu la tacaalayo radinayay inaan fahantaa ma fahad kadib wuxuu yidhi fain abaa fahmuk fahamkaaga hadduu diido wataqaasara can haada arrintan ay ka gaabsato oo ka gaabsamo uu fahmi waayo ka gaabiyo وقالوا إذا أنا لا أفهم إلا أنه مماثل ما فهم يعني كان شيء مويان مماثل إنه يسكمده نعم قلنا هناك جواب آخر جواب كالأيان هل كان كهينا وهو أن الإضافة هنا إضافة على صورته من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وتيرين لو تيرنا مخلوقة خالقه فقوله على صورته مثل قوله وحيلم التهي مثل قوله في آدم ونفخت فيه من روحي أي لم يتهي مفاد معناه إذا ما أهن ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل محل ولا روح دي إلهي أبوري لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف وباب التشريف ويان بوليه جواب تسأل شيخ كبحنيا فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها ويان بوليه انت الجواب أي شيخ كبحنا يا مسألة وكون واضحنا بل إلهي بأيدي كل شيء انت هرنا وعلى قصة جرى ومضح أهيد وكو عديني شيخ مسائشان يحديدان إنه إشكال لكاني أما إشكال ماشي كاني وكجوابي intii dambe ee jawaabta ahayd oo waxaan ooga jawaabaynaa sidan iyo sidan uu ku faaqidayay uu ku kala dhigdhigayna ayadana waa laga jaray batri iyo khiyaano nooci ugu dambeeya la sameeyay inta lagu ma ekeenin intii dhexe ee ishkaalka ahayd ee sheekhu radinay ee sheekh madhab looga dhigay saasaad qabtaa baa la yiri saasuu yiri buu dhahay meeqa khiyaano inta ku jirto waa batri waa khiyaano waa been abuurad waa waxa soo dhan ninkana waxa uu sii dheer adab xumo iyo dhiiranaan uu ku dhiiran yahay Allah azza wa jalla ilaahay uu sheegay shay asaga ka hor wax sheegay aan la arag oo ah ilaahay ba bini aadamka cawrada leeyihiin oo kala leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ciroolihi nimanka ka tirsana iyo culimadoodii haday saa u hadlayaan caamadoodii iyo dadkii talabatul cilmigoodii maxay moodaysa ajiib waa la yaab leh ولأنزلن إليكم بصواعقي ولتحرقن جنودكم نيراني ولأقطعن بسيف حقي سركم